السلام عليكم صاحبي soo dhawaada muuqaal cusub muuqaalkan waxaan ugu talagalay haddii aad iPhone wadatid qaabka aad ku dhaqan lahayd ama aad iskaga dhaqan lahayd haddii aad markaa taleefan kartid inaad dhaqdid marka muuqaalkan ayaan ku faahfaahin doonaa step by step la soco horeen waxaa soo galaysaa setting mobilka saaxiibayaal marka hoos ayaa sugaysaa general ayaa ku dhufanaysaa meel ay ku qoran tahay kadibna hoos ayaa sii wadaysaa qaybta ugu hooseyso meel ay ku qoran tahay maalinta marka ay ugu hooseyso transfer and receipt kadibna labadan qayb ayaan ku keeni doonaa labada option marka receipt haddii aan ku hormarno receipt waxaan ku arki doonaa shan qayb marka shantan qayb isla aragna kow qaybta ugu horeysa waa inaad settingka haddii ay cilad ka haysteen si gooni u dhaqtid network haddii ay cilad ka haysteen gooni u dhaqtid asagana qaybta labaad hal noqda keyboardka oo kale dictionary iyo qaabka wax u qoraa haddii cilad ka haysto qaybta afraadna waxaa waa screenka iyo waxyaabahaas qaybta shanaadna waa location iyo privacy marka muhiim ma aha sidaas haddii aad rabtid inaad marka taleefanka dhaqatid qaybtaas iskama dhaqaysid waxaa ku dhaqan qaybta hoose ee erase all ay ku qoran tahay marka qaybtan haddii aan ku dhufano noo soo saaraya ujeedaan dabcan haddii aan ka laabano oo aan kusoo laabano marka si aad u aragtid meesha aan taaganayno kadibna marka waxaan usoo saari doonaa applicationada iyo daatooyinka aan ku isticmaalayo taleefankeena iyo Apple ID-geena sidoo kale marka continue ayaa leenahay continue markaad ahayd waa levelka ugu dambeeya maraysa oo taleefanka ku dhaqleed marka passwordka ayuu ku weydiinayaa si uu u hubiyo inaad adiga tahay marka passwordka aan gelinaynaa 680 kadibna wuxuu ku leeyahay ma hubtaa inaad dhaqaysid taleefankan haddii aan yani erase iPhone dhaho waa inaan dhaqayo ay kala ka mid tahay marka haddii aan ku dhufto taleefankayga oo dhan ayaa isdhaqaya erase iPhone ayaan leeyahay marka waxaan rabaa inaan dhaqo taleefankan dabcan wixii dhici doona isla arkaynaa waxyar ayaan sugaynaa waanoo bilaaba marka qaabka uu ku dhaqi lahaa processkii uu ku dhaqi lahaa inuu bilaabaya waan isku soo laabanayna marka ilaa ay cabar inaan processkan soo dhameeyo marka hawshii dhaqista uu soo dhamaaday marka taleefankeena inaan set up gareynaa ayuu naga doonayaa marka qoraalada ayaan soo qorayaa taleefanka isagoo cusub camal ayay ka mid dhimxinatay marka haddii aan taabano luqadaha oo kale luqadaan doorina marka English ayaan ka doortay English marka kasii doorto wadanka aad joogo marka Soomaaliya automatic saa u qaatay kadibna waxaan leeyahay set up manual qaybta hoose ee ku qoran tahay ku dhufanayaa kadibna continue ayaan leeyahay continue marka dhaho wifi ina ku xirayo rabaa si aan Apple ID-ga iyo waxyaabaha aan u baahanahay aan ku xiro qasab waxa ina marka wifi isticmaalo marka waxa ku soo xirtay wifi-gan ee ku qoran tahay engineer Usama kadibna waxaan leeyahay next qaybta geeska waxyar aan sugaynaa marka wuxuu leeyahay it may take a few minutes to activate your iPhone يعني وقت كوبنا أي وقت هي رأي قانة أساسي وسكو أكتب كري iPhone كوحير وين سوينا كديمنا حنا صبح دونا قيبتان إن level كانوا سوق بينا كديمنا continue لأن يعني حاول data privacy حكتي وحيابي يعني أنا بحنا هي يعني إنه شيء كلا كنا عم حلنا حكتي يعني هراء مركب حكويدينا حكتي هذه هراء قبل أيديا هدي أتحسستيت أما استعمال كرتيت فرط هذه إنه سي ولتيت أما إن هذه يعني continue إن هذه أمينا مركا أنا وحرنا هنا يعني مركا لو استعماله حد مرة من مركا Apple ID and Touch ID كي أنا استعماله سول كي مركا Touch set up and Touch ID اللي تاعن ليه هاي كده من don't use أي شيء تاعنا مركا ده حنسمينا password عصب قيب تاعنا سو كود بيه create passcode marka waxaan sameeynaa password cusub 745 hal labo marka kaas aan sameeynaa password kan cusub waxaan sugeynaa marka geeska waad u jeedaan waa u raadinaya kadibna qaybta aan soo saar doonaa shantan qayb marka qaybta koowaad waxa waa iCloud backup waxa waa xogtaadii haddii aad iCloud gashatay inaad dib u soo ceshatid sidoo kale qaybta labaad waxaa la restore for Mac or PC يعني xogtaadii haddii aad Mac computer ama PC aad gashatay inaad soo ceshatid sidoo kale qaybta saddexaad direct from iPhone transfer marka haddii aad xogtaadii dib yani iPhone kale aad ku tuurto xogtaadii inaad soo ceshatid qaybtan kalena ina Android haddii aad ku tuurto soo ceshatid markaana waxaa leenahay qaybta ugu dambaysa ee qoran tahay don't transfer app and data marka qaybtaas ayaan ku dhufanaynaa xogteena marka waxaan marabna in meel kale lagu soo diray si toos ah u galnaa rabnaa marka hadda waxaan imaanaa qaybta Apple ID-ga haddii aad marka Gmail-kaaga Apple ID-ga xasuustid waa inaad meeshaan gashataa marka si uu qaybtan kuu gudbiyo Gmail-keena ayaa soo gashanaa anaga kadibna waxaan leenahay waa inaad isku hubisaa next ayaan leenahay marka qaybtan soo u gudubno
qaybtan marka waa muhiim haddii aad marka gmailka ay ka siinin qaybtan ma gudbi kartid waxay noqonaysaa marka Apple ID-gaaga inaad dib u heshid inaad soo ogaatid next ayaan taabanne waxay raan sugeynaa marka kadibna waxaan nala weydiin doonaa inaan yani ka seeno passwordka marka password geli ayuu leeyahay passwordkaaga haddii aad xasuustid marka waa gelin kartaa sidoo kale haddii aad xasuusin waad taaban kartaa forget marka anaga haddii passwordkeena ka seenaa kadibna next ayaan leenahay passwordkeena ay gelin waxyar ay sugeynaa marka geeska waa raadinayaa qaybtan kale ay soo gudbinay qoran tahay two factor authentication qaybtan marka lambarka konto ila u dambayso waa lambarka aan ku samaystay Apple ID-ga marka haddii aad lambarkaas haystid wuxuu ku weydiin doonaa marka lamka haddii kale did not get verification marka verification ayuu kugu soo diri doonaa haddii aadan helin waxaad taabanaysaa meesha ku qoran did not get verification marka aniga hadda wuu ii soo diray verification-kii oo waa helay markaan waxaan gelin doonaa lambarka meeshaas aan gelin doonaa lambar 6 lambar meelaas oo ii soo diraya marka 6 lambar ayaan gelinayaa xagga kadibna next ayaan leeyahay marka kadibna qaybtan waxaan soo gudbinay heshiiska ah yani terms and condition marka waa shirkadda Apple barnaamij ay wadato heshiis aad ka galaysid marka waxaan iska leenahay agree barnaamijka marka waa inaad si fiican u akhrisaa haddii aad markaa rabtid inaad yani si gaar ah u akhrisid send by email ay leedahay marka waxaan taabanaa agree marka kadib qaybtan ayuu ku soo gudbinaa oo waxay sugaysaa passwordkaaga hore inaad gashatay camal marka haddii aad passwordkaaga hore xasuustid marka meeshan aad gelinaysaa aniga hadda waxaan xasuusanaa passwordkayga hore haddii kale waxaan iska leenaysaa makasay passwordkayga marka waan xasuusanaa waa gelinay يعني كدبني وقبتها نص صاري ودايو make this your new iPhone يعني كدي قاب كان يعني مت ترافيك عصبي أو كلا مركا continue لنا هاي أما customize ودي كرتا مركا أنا continue سي لنا مركا الكسوة أورادينا ووجدان طبعا مركا وحنا صوب بعد قيب قرنته welcome to iPhone مركا هالكا تسوي جدا welcome to iPhone دي أنا مركا get started نحنو تلافيكيني وحاول نقول دونا مد عصب كبي أهمبا وأن حكم كجرين سيدا كسوق ذاته أو كلا ينقل دونا مركا يسول عرقنا وأدو جدا مركا هذا إنه حنكسر إسكده مركا تلافيكيني وجدا سيدا كسوق ذا وحلا هذا كمجرو حكتي لان كجرتي ونوان كدقني وريستار أي ودرني أديان ملو بكفيرنا مركا سيدا جالريجا أو كلا هدي كو أي نقرأ مركا إن أنتو سينو دانك صوب إحنا وادو جيتان هدي هاد مقالكن كيشي حكا عسلا لايك سيدو كلا دانك حسبتين وصوبير مع السندين